كدب تركيا مدمر كان جوجني شيخنا الشيخ عبد الرشيد الشيخ علي صوفي حفظه الله إلى حفظه يا وحو صدر دعوة مثل إيفنتيشن أكتيس أيان مدة جوجي مالمو وحن حسوستا ما دام معلنكي أنا وح إصابري وأرضي سوها الشيخ علي صوفي الشيخ عبد الرشيدنا صاحب تنمو آد وحل دير وباحد وين نقد حيسو شيخ مرول مركون لماذا فترة داس عن صوت شيء سياشنكي إلى إيو لبكون يسدح طبنكي مساجك يقصر مري جري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أدبا إني سلامينا ميل كستود أدونك جوكتين وولالكن سفيرك إسلامك وبرامشدي قروح دبضنا وآلا بكلا سعوتين برتين ميديا سفيرك إسلامك وأن آلا بكسو قبجرنا علماء الصوماليات دعالة أدونك ميل كستي جوغان مانتا وحا برامجكينا مرتي إنه شيخنا الوالد الشيخ أحمد هرمودك أما هرجوجها مركزك الشيخ علي صوفي كويا لا أنكرا تركيا شيخنا مركز كسود ويننا كسود ميديا سفيرك إسلامك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بل أنا جيدا وذياشنا لو ذاك وكما الشيخ أحمد حجيبه كسود برباري فمن يا سود بربارشي سودو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد النبي الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار بهديهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أولا إلى بما تسقناتي جل جلاله سبحانه وتعالى إلهي إنه سقري إنه سهلي إن ماشي عن كل سيئي هذا المكان المبارك فلله الحمد الأولى والآخرة. ثانيا وحن سلامية وهل كان ولا الله إن داوني وحن لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب مقعي هو أحمد عبد القادر الحاج وكم قاعد أبو معاذ waxaan ku dhashtay magaalada Muqdisho xaafadda Xamarweyne ayaan khaasatan ayaan ku soo barbaaray meeshaas ayaan dugsiga Quraanka aan ka bilaabay iskuulaadkii aan galay koowaad iyo dugsiga koowaad iyo labaad iyo saddexaad ilaa iyo dhowr dugsi ayaan soo maray, dhowr iskuul ayaan soo maray. kadibna ugu dambeyntii waxaan secondary-ga aan ku soo qaatay iskuulka loo yaqaano 21 October 22 October secondary-ga meeshaas ayaan ku soo qaatay xaafadda wadajir loo yaqaano Buluxuubey suuqa quraca meeshaas ayaan ugu dambeyntii ayaan deganaa. شيخنا وما سنتي الله كبركيه واحد حرير للذا القرآن الكريم كه كرمات حفظي يسمع علم كوها runtii yaraanteena waana la soo baray su'aasha hore haddaan ku laabto famil oo iska caadi ah yaan ku soo barbaaray khaasatan haddii aan u sii dhaco hoos hooyaya ay soo koriday raximahullah ilaahu naxariisto raxmatan waasica habaryashayda ayada sacuudiga ayay soo aaday 79 meelahaas markay ahayd kadibna waxaan la noolaa habaryashayda oo door weyn ka qaatay iskuulkayga iyo quraankayga intaba kadib xaafadda adii sheegay wadajir ee Buluxuubey يا إلهي سبحانه وتعالى إلهي نو دوري إن
dad wadaada aan meesha ay naga qabtaan ay noo bilaabaan culuum sharciya 40ka iyo caqiidada safiinatu salaat kadibna xaafada buuluxuubey dugsi ku yaalay oo sheekha hadduu nool yahay waan u duceynayaa sheekh Muusa xafidahullah hadduu dhintayna waxaan leenahay raximahullah raxmatan waasica sheekhaas ayaan quraanka dugsigaas ayaan ka soo bartay laakiin ninka quraanka kow ii bilaabay oo buuluxuubey igu bilaabay oon aan iloobaynin intaan noolahay waa sheekh Jaafo oo hadda imaaraadka imaamka ah faatixadii ilaa iyo suuratul quraysh biilaahi fi quraysh ilaa asiga ayaa ii aqriyay kadibna dugsigaas ayaan ku wareegay oo meel fiican ayaan ka gaaray kadibna sheekha laftigiisa waxay mudan tahay in la xuso wuxuu talmiid u ahaa mise arday u ahaa sheekh Ali Suufi ardadiisa ayuu ka mid ahaa marka maqribkii oo kale uu soo dhow yahay meeshu ayuu ka carabi jiray xaafadda Wadajir uu ka lugeyn jiray ilaa iyo masaajidka ayuu tegi jiray anaga da'deena waa yaraad meeshaas ayaa darsiga uu ka qaadin jiray qiraa'aadka iyo kulli anagana subaxii ilaa iyo maqribiyadii galbihii oo kale ayuu waxna bari jiray macalinkaas wuxuu soo baray jazaahu allahu khayran kadibna sacuudiga ayaan u soo wareegay kadibna meesha ayaan ka sii waday waad mahadsantahay sheekhana allah ku sharfo codkaaga macaana waxaan jeclaan lahayn bal inaad nagu dhaxtaal nooga dhigtid oo nagu qancisid oo nagu dejisid insha allahu tacaala kalaamka rabbi nagu raaxay soo dhawow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله كشرفه وحان رجينا ولا بدن سان ورaaxaysanay inay nogal raaxaysteen codka macaan Sheekh Ahmed shaqana su'aasheena kale waxay tahay waqtigii aad Universal TV ka bilowday sixita tawjiidka kormay ku aadanayd maxaa sababay inuu joogsado runtii waqtigii hadda idin sheegay markii aan Sacuudiga aan ku wareegay sagaashameeyadii ayaan Sacuudiga tagay kadib meeshaas ayaan waxaan ka noqday imaam iyo muadin masjid xaafadda Xay Nakhiil la yiraahdo nin imaam oo Yemeni ayaa joogay ninkii marka meesha ayuu ka tagay imaam ayaa loo baahday anigana kuma aanan talagelin runtii waxaan rabay inaan Muqdisho u soo laabto maxaa yeelay waqtigaas waxaa ii furnaa markas al-Furqaan oo arday badan dhiganaysay meel kale tasjiilaat al-islaamiya oo ayna shamsi ku taalay meeshaasna dukaan ayaa igaga furnaa kadib dagaalkii khaliijka ayaa bilowday waxay ku soo aaday Yementii
la dhahay ka baxa waddanka sacuudiga iyo masjidkii oo inuu firaaqa noqday iyo in kadibna waxaa masjidkii loo baahday in loo helo imaam. khalalaasa yarna waa iska jirtay Soomaaliya, marka waxaan door biday inaan masjidka iska qabsado. masjidka sida ayaan ku qabtay 9-meeyadii haddaan bishii 10aad Oktoobar 1deedii ayaan masjidkaas qabtay. kadib waxaa bilowday dagaaladii Soomaaliya 91dii bilowgeeda ayaan u malaynayaa. kadib meeshaas ayaan ku nagaaday ilaa iyo 2013 masjidkaas ayaan hayay, aan imaam ka ahaa, muadina ka ahaa, xalaqa taxfiidna aan ku hayay. kadib waxaa bilaabatay qanaat mise telefisyoonka loo yaqaano Universal TV. Universal TV markuu bilowday nin la yiraahdo Abubakar ilaa khayr ha siiyo oo jiddana la noolaa ayay xiriir lahaan jireen telefisyoonka. kadib wuxuu noo xilsaaray maadaama jaaliyo ku nool Jidda aynu nahay oona hogaamin jiray Sheekh Cabdulqaadir akhi sheekh la yiraahdo iyo majmuuca ayaan ahaan, waxaana loo xilsaaray in aan ka baahi tirno telefisyoonka maadaama uu cusub yahay qaybta diinta. qof walba waxbaa loo xilsaaray, qof walba meeshuu ku fiican yahay, kutubada, siirada, tafsiirka. aniga waxaa igu soo aaday tasxiixul qiraa'a wax la yiraahdo, in aan dadka aan ka saxo qiraa'ada. kadib waxaan u samayn jirnay maalin talaada ah ayaa dadka live aan ugu samayn jirnay. falilaahi alxamd. shay walbana saad ula socotaan wuxuu u baahan yahay dacmi. shay keligiis iska soconaayo ma jiro, mashruuc keligiis iska soconaayo adduunka laguma arkin. nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa dacmi u ahaa tujaartii Abubakar ridwaanullaahi calayhi, Cuthmaan bin Cafaan, wahaakada Cabdiraxmaan bin Cawf. ayagaa dacmin jiray, ayagaa islaamka fangarayn jiray, wax siin jiray. marka walaalo oo mudan aan kaga faa'iidaysanayo maanta intaasoo sano ka bacdi inaan xuso ka shaqayn jiray bankul islaami oo Jidda ku yaalo ayaa isxilqaamay oo isku dari jiray dacmigii iyo walaalaha oo dhan. kadib sidaas ayay ku socon jirtay ilaa iyo muddo ayay socotay. live ayaa loo soo geli jiray, tasxiix alqiraa'a ayaan ugu magac darnay. sidaas ayay u socotay. kadibna waxaa dhacday haddana dacmigii inuu yaraado. sidaas ayaa macnaka dacmi la'aan ayay ku istaagtay, saasayna ay ku soo gabagabooday. waa mahadsantahay sheekh, Allah ku barakeeyo. waxaad gacanta ku haysaa oo mas'uul aad ka tahay markaska weyn ee Sheekh Cali Suufi, madrasada Sheekh Cali Suufi ee dalka Turkiga. bal fikir naga sii, magacan Sheekh Cali Suufi maxaad ugu dooratay, maxaase lagu bartaa? markii la gaaray taariikhda 2013 anigi iyo wiil aan dhalay oo Suhayb la yiraahdo xafidahullah, ilaahay noo xifdiyo, ayaan ka tagnay waddanka Sacuudiga. Turkiga ayaan aadnay. kadib Turkiga muddo markaan joognay sheekheena Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi xafidahullah, ilaahay xifdiyo, ayaa wuxuu ii soo diray dacwa mise invitation. agtiis ayaan muddo aan joogay maalmo. waxaan xasuustaa maadaama macalinkii aniga wax isoo baray uu ardaygiisu ahaa Sheekh Cali Suufi, Sheekh Cabdirashiidna saaxiibtinimo oo aad u xeel dheer u baaxad weyn naga dhaxayso. sheekh mar walba markuu yimaado fatradaas aan soo sheegay 90kii ilaa iyo 2013kii masaajidku ugu soo mari jiray. caruurteedu la socban jiray quraanka, waan ka duubi jirnay.
jaziriyada maqaatic makan ugu tagi jirnay yani aad baan isku dhexgalnay kadib markaan qatar ku ziyaartay maalin anagoo socono oo training ku jirno yaa wafaa'an yani anigoo oofinayo macalinkii aniga wax bari macalinkiisa ayaan sheekha u bandhigay waxaan ku yidhi sheekhow hadda hadduu ilaahay nabad ugu celiyo waxaan ku fakarayay maadaama caruurtayda ay badankooda ay xaafidiin yihiin in aan markas sameeyo maadaama soomaalida hadda ay turkiga ay ku soo badanayaan waxaan kaa codsanaa in alwaalid الشيخ علي صوفي رحمه الله رحمة واسعة إن ugu magac darno madrasada marka sheekhu wuxuu yiri in sha Allah la baas adiga nabad ilaahay kugu celiyo in sha Allah wax ma dhibayo in sha Allah marka noqotid ila soo xiriir markaan laabtay oo turkiga aan ku laabtay taasiiskii aan bilaabay anigoo sheekh shibli idin wax la yiraahdo idin anigoo ka haysto aad ugu faraxsan ayaan markaas mar labaad haddana cod ana u duubay codkan waa la maqli karaa aan dhahay sheekhow madrasadii ayaan ku dhihi jiray inaan aabba aan ugu magacdaro ayaan hadda noo diyaar ah markaasuu idin buuxa i siiyey oo yidhi waad ku magacaabi kartaa marka qisada magacaabitaankeeda sidaas ayuu ku baxay 2019kiina ayay aasaasnay kadibna sheekha furitaankeeda uu ka soo qayb galay iyo mashaayikh fara badan oo sheekheena Abu Talha xafidahullah sheekh alwaajidi xafidahullah mashaayikh fara badan muftiga xaafadda kulli ka soo qayb galeen runtii anigoo يعني بركة صناعي ومسي أن تفاؤل أن سمعنا ومدرسة هذا كلية إلهي بركية وضد حفاظ بدن كسب بحيي فرطة على قبرتها قاعد نوراني أي أساس نوعه مركن قفك قاعدة كدس نوع تصحيح القراءة أي إلا أيو جزء وكسمعنا يا كدبنا حفظك أيو سمعنا يا سيد ضد بدن كل مية وهذا الديار إن قراءات كأجبان هذا إلهي يرى كدبنا وحن سمينا ضدك أن آذين مثلا مدرسة وحن أسمين فترتين فترة صباحية صبحي هي فترة مسائية إن أي لبد الجلنباء قذو ذا ماشى أي كعنان أي سنبحين أنا قلت لك قلني لبس نقوله هذا إن أي كحفظيان marka madrasada isniinta ilaa iyo khamiista quraanka lagu bartaa ardayga darsigiisa laga dhageystaa kadibna darsi cusub la siiyaa kadibna muraajaco oo nus juz ayaa laga dhageystaa xasab imkaaniyatihi kadibna jimcaha fasax ayaan galnaa sabtiga axadana waxaynu qaadanaa axaadiista adkaarta siirada تفسيرك iyo tajwiidka iyo fiqiga intaas ayaan ku sameeynaa madrasada ilaahna waan u barkeeyay aniga caruurteeda iyo hal sheekh oo sheekh Abu Bakar la yiraahdo ilaahay noo xifdiyo oo ka soo jeeda Djibouti ayaan intaasaan ku joognaa gabdhahan waa qayb wiilashan waa qayb waayo sheekana gabagabadii waraysigeena soo gaarnay maxaad kula dardaarmi lahayd dadka quraanka xifdisan si uu uga fakan ama uga baxsan soo dhawow runtii dardaaran maanta aan oo dardaarmayo oo kii aan nabiga aan ahayn sallallahu alayhi wasallam ka sugnaaday ma jiro tii nabiga ayaan xusuusinayaa laana nabigu wuxuu noo sheegay alayhi salaatu wasalaam quraanka inuu ka fakasha badan yahay وآد أفكاناي جيلة مركا أن هوجانك لوهاي هدو جعنت هذا كفكتو ساد أقبتد وأذكتها فإنه أشد تفلتا يعني وحوك فكشبدين هاي جيلة مركا هوجانك لوهاي هوجانك هدو كفكتو سد أفكتو وعرره وهكذا أساس أيوك كفك مركا سوي النبي تعاهدوا هذا القرآن مر والبقرة أديس إلا بضيه ayaa loo baahan yahay oo lagu tadabburo
marka qofku waxaa loo baahan yahay oo xaafidka ah in uu wirdi samaysto waxaan xusuustaa sheekh la yiraahdo Jaaruushi sheekh Muuse Jaaruushi oo Sacuudiga asigana waxa ugu soo baray in wirdigiisu uu ahaa filyoom waa nin muhandis micmaari ah ishqaashiisa yani mashquul aad u ah mashquul weeyaan intaasoo arday ayuu hayaa maktaba u furan maalinkii 10 juz ka yar muraajacadiisa ma ahayn yani isbuuc walbo 2 jeer ayuu khatimi jiray اسبوع والبو لو جرى ايو ختم جير مثلا سبتك مركو بلابو يا احد سنين تختم ايو سمين جير الشيخ موسى جاروشي حفظه الله اسبوع والبو لو مر ايو ختم جير سبتك يا احد سنينتا هل ميران كو افرو جيرنا اسيغا افرنو سمين جير مدرسه دخديده هدنا talaadada iyo arbacada iyo khamiista hadana waan isla afro jirnay wuxuu noo soo gali jiray aan xasuustaa asagoo safxada ugu dambeeya aqrinayo qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa hakada bismillahir rahmanir rahim illa birbinas wana soo fariisan jiray hore laga dimi jiray meeshan ku afro jiray marka waa inay muraajacadaada ay badataa muraajacada faraha badan ayaa quraanka uu ku fariistaa laakiin haddii muraajacadaada ay yar tahay waxaad ogaataa yaa xaafid alqur'aan in uusan kuu fadhinayn marba waxaa fiican marka muraajacada marka qofku uu sameynaan qof kale inuu u qabto oo ka dhageysto sida aniga aan jeclahay weeyaan maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khayr khalqillaahi ah ayaa waxa loo soo diri jiray Jibriil alayhi salaam ayaga ayaa muraajicin jiray muraajacadan laba qof inay ku fiicanta ay ku wanaagsan tahay laba qof inay isla muraajacaan laana adiga quraanka waa mucjiz adigoo kaligaaga aqrinaayo waxa laga yaabaa inaad aayad aad ka boodid laba aayad aad ka boodid xaramka ay ka dhacday dad a'imma ah oo mutqiniin ah ay ku dhacday quraanka waa mucjiz mar walba waxa xaawishaa markaad raajicinaysid in musxafka lagu qabto mise adiga iyo qof in aad rubac mise noocaas oo kale laba qof ay ku wanaagsan tahay si qofkaas kale mar walba ugu fiiriyo oo ta'kiid ugu sameeyo marka muraajacada faraha badan ayaan ku waanin lahaa iyo tadabbur لأن كتابك أساسك لو سو دجيي إلى أسو دجيي وإن لغو تدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إن لغو تدبره أيا لبهاية وهلك آيات حتى أتمدأتكو العليسد وتكون راح سنساء سفي عنك أفهمساء وهكذا جزاكم الله خير waa mahadsantahay sheekh Allah ku sharafo intaas ayaan jeclaanay barnaamijkeena qaaska inaan ku soo gabagabayno sheekh Axmed horjoogaha ama maamulka markaska weyn ee Sheekh Ali Suufi Ankara Turki ka furan oo maantay fadhigeena marti nagu ahaa intaan dib dambe isugu imaan doono wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh